cawaysi wanaagsan dhagaystayaal sida aad u dhantihiin halkani waa Washington. Maxamed Siraal Doolaal oo sheegtay inuu hogaamiyo ururka ONLF ayaa sheegtay inay jiraan shirqoole la doonayo in lagu qaarajiyo. Dr. Doolaal oo haatan ku sugan gudaha dalka Itoobiya ayaa sheegay in shirqoolka la doonayo in lagu qaarajiyo ay maleegayaan saraakiil ka tirsan ururka ONLF. Xuseen Barre Aadan ayuu uga waramay sheegashadiisa. waa markii afraad maxamed cumar cusmaan iyo kooxdiisu ay isku dayeen dhibaatada ONLF ka dhex jirta sidii xal shirweyne si nabadgelyo in lagu xaliyo intay diideen ay bilaabeen in ay ragga toogtaan oo xabad ku xaliyaan. maxaad ku cadaynaysaan marka eedeymahaas? walaalow waxaan ku cadaynayaa bishii July magaalada Ifo la yiraahdo aniga iyo injineer Saalax Diin Xaaji Cabdiraxmaan Macow waxaa la isku dayay in la dilo ayaa la isku dayay arrintaasna way fashilantay oo xubnihii joogay baa fashiliyay iyo guddiga nabadgelyada ee Kenya. maxay tahay marka sababta khilaafka idinka dhaxaysa ee ilaa heerka in la isdilo gaadhay? aan ku tiriyo walaalow haddana waa markii saddexaad marna ciidamada Itoobiya oo 6 helicopter wata ayaa goobtii aan joogay nagu soo hogaamiyay. haddadan aan kula joogana walaalow shirqoolo ayaa maaragtay la maleegayaa waxyaalaha waxaasoo dhan sababaya ee ay u samaynayaan waxaa weeye jawixo xeer bay leedahay xeerkeeduna wuxuu ahaa in shirweyne markas 4 sano markii la joogaba la qabto dadweynaha lala tashado lala maaragtay kolba wixii noo qabsoomay waxaan noo qabsoomin xeerka wixii laga bedeli wixii lagu soo dari in dadweynaha markastaba la hor yimaado way diideen 10 sano ka hor baa ugu dambeysay shirweyne la qabto 1998 waxay ka soo horjeedaan in xal nabadgelyo ay ka soo horjeedaan waxay ka soo horjeedaan in dadweynihii lala tashado maalin walba xabad iyo dil waftigii aniga ila socday xabad baa lagu dhuftay ee aniga waftiga ninkii ila socday taas walaal xal uma noqonayso shirweynihiina waanu qabanaynaa dadweynaha Soomaalida ogaadeenayana saalibay ka yihiin jabhadda Soomaali galbeed ee iyagana sida dhifta yar maalin walba walaalahana oo gumaysiga la dagaalamaya loo leynaya ama loo weerarayana iyadana inaanu soo afjarno ka wada hadallo ayaanu anagu diyaar u nahay oo ogaadeenaya u joogaa. goorma ugu dambeysay oo aad wada hadasheen garabka kale aad ku tilmaamaysid inay idinka soo horjeedaan? walaalow way naga soo horjeedaan ma aha ee gumaysiga ayay la jiraan sababta iyaga diyaaradaha helicopter gunships anagu meesha aanu marayno loo garaacayay oo iyaga loo taabanayno waa midda labaad dadweynaha iyo shacabka maxaa loo leynayaa hal qoys ayay ku laayeen meesha la yiraahdo garni. ma laba ciidan baad kala tihiin? koox waxaa weeye gaar isu urursatay oo bandareero ku soo qaadanaysa weeye oo gacan lale oo Soomaaliya ka timid weeye. tusaale haddii aan ku soo siiyo 40 sano maxamed cumar cusmaan admiral ka ahaa oo ciidamada Soomaaliya ka tirsanaa maadayna asaasayaashii ONLF asaasayaashii SPM asaasayaashii SNA iyo xoghayntii ID raggaas oo gacamo shisheeye ay ku dhex jiraan baa hawshanada baabi'inaya oo wayaanaha gacan saar la leh annagu se waxaanu u dagaalamayna hadday nabad noqotana diyaar baanu la nahay shacabka annaga inaanu midayno jabhadaha halkan ka dagaalamaya aanu midayno kuwa Itoobiya la dagaalamaya aanu midaynaan rabnaa. adigu imka ma gudaha Itoobiya joogtaa? gudaha ogaadeenaya ayaan joogaa bartankeeda ayaan walaal fadhiyaa. waayo wax ma nooga sheegi kartaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Dooble maxay tahay sababta dagaaladaasi keentay? walaal dagaaladaasi waxa weeye waa qorshihii aan ku sheegayay ee la rabay koox Itoobiya ka tirsan magaca sheeganaysa in ay hawlaha Soomaaliya farageliso anaga haddaan oo aan lafnay maxaa dagaalada jubooyinka la gelinaya. Maxamed Siraal Doolaal oo sheegtay inuu hogaamiyo ururka ONLF oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga.